yaa dilay yaa saqarxiyey amniyaadka al-shabaab iyo ciidamada nisa marka ay isku dhex milmaan maxay tahay natiijada ka dhalata ugu yaraan 19 qof ayaa ku geeriyooday ilaa 60 kalena oo ay ku dhaawacmeen qaraxyo xalay ka dhacay magaalada muqdisho qaraxu waxa uu ka dhacay oo lagu bartilmaameedsaday qarax xooggan oo khasaare naf iyo maal baa geystay galinkii dambe in uu ka dhacay qarax al-shabaab waxay hadda isticmaalayaan chemicals ka awood badan kuwii hore aaladaha laga sameeyay qaraxyada soo galitaanka dalka ay soo galaan oo fududaatay taasoo ay ka mid yihiin maaragtay waxyaabahan loo yaqaan fertilizerska oo lagu bacrimiyo beeraha waa la control jiray intii annaga aan joognay hay'adda nabad sugidana waxaan sameynay inaan ka mamnuucnay wadada laga sameeyo qaraxyada ee loo yaqaano TNT waxay si toos ah uga soo degtaa dekedda magaalada muqdisho shakigaas aad u jira ma ahana taas kaliya maaha wixii ay isticmaali jireen maaragtay wadada awood badan iyo ka tira badan ay heleen sababtoo ah waxaanan jirin controlkii control lahaa oo ku qaban lahaa marka la keeno dekedda la keeno ilaa bahashan ragga keena haddaanan laga warqabin oo aanan maaragtay la baarin maxaan ku yiraahdaa waa fududaanaysaa inay u soo degto oo ay gaarto kooxda shabaab isla markaasna ay ku sameeyaan qaraxyada 8 bilood ah cadceed waxa ay soo baxaysay iyadoo ay qorshaysan tahay dilka sarkaal ka tirsan hay'adda nisa bu'aali iyo buurdoobo dhammaan deegaanadaas waxaa lagu dilay ilaa 20 sirdoonka qarsoon ee hay'adda nisa general wuxuu meeshii ka soo buuxiyay nisa nimankii amniyaadka ee al-shabaab u shaqeynayay taasoo khalkhal badan gelisay oo maanta aan la kala ogeyn cidda al-shabaab iyo cidda nisa oo dadkii iyo siyaasiyiintiiba ay runtii cabsi xad-dhaaf soo gashay September 22keedii 2018 Aamina Xuseen oo ka tirsanay darcadda hay'adda nisa ayaa lagu dhex toogtay fasalkii ay xiisadda ku qaadanaysay yaa farta ku soo fiiqay Aamina muddo Cabdalla oo ahaa taliye ku-xigeenkii hay'adda nisa qoraal uu la wadaagay madaxweynaha Soomaaliya ayuu uga digay in xubno al-shabaab ah uu Fahad Yaasiin ka shaqaalaysiiyay hay'adaha dawladda balse Fahad Yaasiin ayaa kaga jawaabay eedeyntaas weerarkii lagu qaaday xafiiska ku-xigeenka hay'adda nabad sugidda Soomaaliyeed nisa General Cabdalla waxa la rumaysan yahay in ujeedada ficilka loo sameeyay ahayd in la burburiyo ama la baabiyo cadaymo la filayay inay jireen kuwaasoo ku aadanaa in Fahad Yaasiin uu la leeyahay xiriir hoosaad kooxda argagixisada ee al-shabaab maamaha Soomaaliyeed jirta oo la yiraahdo wixii la qaray qurun baa ku jira marka hadda aragto nin isqarinayo nin ay wax u duugan yihiin waa horta taliye-xigeenkii koowaad ee hay'adda nabad sugidda qaranka General Cabdalla wuxuu shaqadiisa ku waayay dacwad uu ka gudbiyay Fahad Yaasiin uu u gudbiyay maxkamadda ciidamada qalabka sida isagoo sheegay inuu hayo cadaymo ku filan in uu ninkan xiriir leeyahay kooxda al-shabaab 27keedii 2018 waxaa muqdisho yimid taliyihii sirdoonka dalka Suudaan Saalax Cabdalla Goosh waa 10 maalmood kadib markii uu madaxa ka noqday hay'adda nisa Fahad Yaasiin Saalax Goosh hadda waa baxsad ku eedeysan hawlo argagixisnimo iyo dambiye kale oo ka dhacay dalka Suudaan European Union gacmo kala baxay Ingiriisku gacmo kala baxay Mareykanku nisa waa kala baxay gacanta waxba ugu hararay oo waxa ugu harar daroonkan ay ka kicinayaan hadda waxaan gacanta ku qabtay qadar Fahad Yaasiin iyo Saalax Goosh oo labaduba ku ximahan jawaabahooga si aan u helno waxaan booqanay magaalooyin iyo dalal kala duwan waxaan raadinay xog dhammaystiran iyo macluumaad bulshada ka qarsoon waxaan waraysan ururin iyo baaris aanu sameynay ayaa sal u ah filimkan gaaban ee soo socda oo aan ku eegayno isku milanka al-shabaab iyo hay'adda nisa